وصيدا صدحات وحاوي ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر خمرها ودوان Soomaalidu waxay u haysataa khamra markii la yiraahdo midan biyaha ah dareerta bas ay u haystaan taabas khamra ma aha khamradu waa magac caamaho wax kasta oo maskaxda qofka dooriyo maanka ka qaado maxaa laga soo istisnoodaa waxa maanka dooriya waxyaalaha ay dhaqaatiirtu isticmaala ahayaan ee nacfigoodu muhaqqaq yahay baa laga soo istisnoodaa qof baa la rabaa in la qalo waa la suuxinaya ama si juz'i ah loo suuxiyo ama si kulli ah loo suuxiyo kulligiiba hal maartay hal lagu rido iqmaha ama qayb kamid ah laga rido waxyaalaha marka muhaqqaq ah nacfiga ka dambeeya ay dhaqaatiirta takhasus kale ay xaqiijiyeen kaliya laga soo reeba ama khamra marka waxa la yiraahdaa waxa weeye kullu ma khamara al-aql wax kasta oo madaxa intuu daboolo maankaagi badala oo dhan baa soo galahaya ayan kana maalin baa waxa soo galay muqaaxi saddex nin baa fadhido qaad cunaysa saddexda nin ee fadhida qaadka cunaysa nin wuxuu rabaa inuu kaligi hadlo waa saddexdii nin ee isla fadhiday nin wuxuu doonayaa inuu kaligi hadlo ninna wuxuu doonayaa inaan la hadlin ninna dib u guranayaa darbigi uu ku guran sidan uu leeyahay waa saddex nin darbigi uu ku guranaya kii rabay inaan la hadlin kiiba wuxuu ku dhihi kiina wuxuu leeyahay waraan ka hadalkan ka dhamaysanay noo kaadi xagay marayaan nimankaas isaga masaajidka waxa inala jooga nin qaad u fadhiistay qaadkii markuu muddo waday wuxuu damcay inuu guri iyaga u dhawaa oo ka soo qaado wax oo uu meesha ku soo noqdo socodkii inuu iska watay hadda masaajidku inala jooga wuxuu yiri markaan magaaladii meel u jirta 35 kilomitir aan marayo baan dhinacyaha fiiriyo yiri waxaan arkay buu dhulkan geela ku raaci jiray baadiyaha aha anoo marayo marsarku soo jeedaan waxyaalaha hadda inaga aan ooga soo joognay qaad hadda hadii la dhaho la tiriyo wax la soo koobi kara ma waxaan aniga hadda idin la hadlayo u taagnaa laba nin kuwaas midna in la hadla aan doonayna kuna darbiga ku siqaayo kan mooyeen waxaan u taagnaa laba nin qaad buu cunay suu cunahayay buu biyo qaatay buu soo qabaysan rabay wuu qabaystay maryihiiba wuu iskaga soo tagay muqaaxidiibu wuxuu ku soo noqday isagoo mud iyo adariira nimankii la fadhiyay way taqsiinsan yihiin ayagana hadal cad ma dhahan way fiiriyaan dhinacyada u fiiriyaan arbal eeg bay leeyihiin ninkan wala dama wax u sheegtaan ninkii isagii wuxuu arkay in dadka wada guulguuli wuu isfiiriyay waa baqaawan yahay qosol buu u dhacay qaadkii meesha u yaalayna niman buu siiyay maalinkii baa ugu dambeysay halkii buu go'aan kaga gaaray hadda South Africa ku jira isla raggi iyaga ahaa nin kamid ah ba isagana isagoo qaadkii cunahayaan waa isla meeshii ay ku qayili jireen raggaas iyaga yaa musqul aaday musqusha markii la aadayo biyo la qaadanayay soo ma aha shaawar musqusha biyo ma lahayn biyaha banaanka laga qaadanayay bisad yaroo meeshan fadhiday buu shallihi u maleeyay kurku qabsaday musqushu la aaday bisadahan yar yar ee rabaayada aan halkan hadii la qabto waxba ma dagaalamaya oo iska ogol yihiin markuu dhigay way iska tagtay bisadii asagiina musqushibu ku jira markuu hawshiisii gutay wuxuu isoo haystaa inuu shallo soo qaatay xaggu fiiriyay biyo male xaggu fiiriyay biyo male xaggu fiiriyay biyo male qaylo afka ku dhuftay wariya baaso biyihii naga qaatay kuwii horena way u jeedeen mayna qabanin kolku bisada sii wata musqusha wali sii socday way arkayeen
isna maalinkii baa ugu dambaysay isaguna hadda wuu dhoofay Mareykan buu jiraa soo jeedaan aw jaamac wadaad loo oran jiray isaguna waxaan ku yiri waxyaalihii kuugu dhibaato badnaa ee qaadka aad ka soo martay sheeg wuxuu yiri waxa ila cajiibsanayd qisooyinkan ka soo maray dhagax buur baan ka qaadnay buu yiri qaad annagoo 8 habeen 7 habeen soo jeednay markaas waxaan u qaadnay buu yiri Hargeysa meel dhaxa markaan marayno baan aniga seexday buu yiri hal jawaano weyn baan ku kor seexday yiri gaarigi isagoo jiira garahaya aniga hal jawaan baa isla baxnay buu yiri jawaankii aniga isla dhacnay buu yiri ma toosin buu yiri aniga kuwii iga gaariga wateen ka dhacnay aniga jawaankuna nama tabin buu yiri inaan habeen iyo laba inuu laba habeen yiriyo maalintoodii aan jiifay gaari kale oo qaad waday baa jawaankii aniga aan waday buu ku gadoomay laba nin ku dhinteen buu jawaankii aniga aan la dhacay markii hore yuu ku dhacay buu yiri oo intuu la gadoomay buu laba qof baa ku dhimatay buu yiri dhaawicii dadkii dhintay baa itoosiyay buu yiri aniga jaamac waa nool yahay baan filaya dad badan baa garanaya khamradu marka waa wax kasta oo aqliga qofka dooriya mashruucan ka shaqeynayay nin baa wuxuu noo ahaa maaliyadu noo qaabilsana mushaarkii shaqaalaha oo dhan buu wuxuu ku soo qaaday boorso ku soo qaaday maalintii buu khamro ka dhargay boorsadii shaqaalihii dhanaa 1000 nin oo shaqaalaha mushaarkoodu ku jireen oo uu lacag gacanta ku waday network baa ka tagay ninka wada oo gaariga uu saaran yahayna waa ninkii madaxda noo ahaa asagii waaba miyir daboolmay khadkuba ka maqan yahay inuu khadka ka maqan yahay annaga maxaan ku ogaanay waxa weeyeen intuu gaarigi dhaxdiisii buuba waxa weeyaan ishaleeyay isnijaaseeyay halkii baa isna shaqadii lagaga tiray